shirweynahan maanta yaan meeshaan isku nimidna ku soo dhawaada ujeedka iyo hadafka shirweynahan aan u qabanay ayaan rabaa inaan wax yar ka taabto si aad la wada socotaan gobolka Banaadir wuxuu la soo wareegay waxbarashadii oo kala soo wareegay wasaaradda waxbarashada federaalka taariikhdu markay ahayd 9 bishii 2020 muddo sanad ay soo socotay in waxbarashadu gobolka Banaadir la wareego waqti badan lagu bixiyay wasaaradda iyo gobolka wuxuu soo martay hawl kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ayaa la soo maray in xafiiskii la dhiso oo ka shaqeyn lahaa shaqadaas waxbarashada gobolka Banaadir oo dhan maamuli lahaa in la dhiso shaqaalihiisii iyo qalabkii lagu talagalay wixii loo sameeyay dhammaan wixii lagu talagalay waxbarashadaas uu ku gudto in loo sameeyo waxaa ku xigay in la sameeyo heshiiskii iyo qaabkii ay wasaaradda ku wareejin lahayd waxbarashada gobolka Banaadir ugu dambeyntiina ficil alxamdu bishaas aan sheegay ayaa la sameeyay in waxbarashada la soo wareejiyo markii waxbarashada lagu soo wareejiyay aan hawshii naloo xil saaray maamulka gobolka Banaadir madaxdiisa ay noo xil saareen agaasinka waxbarashada u xil saareen ayaa waxaan guda galnay inaan shaqadii qabanno shaqooyin badan aan isku dayna inaan qabanno ku dadaalnay waxaan rajeynayaa inaad ka bagan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxyaabihii noo soo baxay waxaa ka mid ahaa marka inaan qabanno shirweynaha waxbarashada gobolka Banaadir shirweynahaas oo looga hadlayo waxbarashada gobolka Banaadir xaggee maraysaa sidee bay tahay shalay xaggee joogtay maanta markii agaasinka lagu wareejiyay muxuu ku daray xaggeese u socdaa oo la rabo waxbarashadaas in loo hogaamiyo shir noocaas ku saabsan inaan qabanno ayaan ku darsanay qorshaheennii markii shaqada lagu soo wareejiyay shirweynahan inuu dhaco muddaan ka soo shaqeynay 5 bilood ku dhawaad ka soo shaqeynay in shirweynaha maanta aan isugu nimid uu noo qabsado ilaaha ku mahadsan ثم dadkii ka soo shaqeeyay dhamaan cid kasta oo ku lahayd saameyn iyo fikrad ku lahayd way ku mahadsan yihiin madaxda gobolka u sareeya ay qayb ka yihiin maanta inoo soo hortagay markaan isku imaano taas oo rabnay inaan uga arinsano uga tashano waxbarashada gobolka Banaadir xaaladda ay ku sugan tahay waxaan ku talagalnay maanta markii meeshaan aan isugu nimid markii khudbooyinka insha Allah la dhameeyo in la sameeyo doodo ku saabsan waxbarashada ilaa 4 dood ayaan sameyn doonaa aan rajeynayo bahda waxbarashada iyo madaxda jaamacadda kulli meesha jooga ay ka qayb qaataan dadka weynaha meeshaan isugu yimid tirada badan ay su'aalo ka weydiiyaan afartaas arrimood iyo wixii kale ay dadku ku daraan markaan ka hadalno inay nooga soo baxdo meeshaan u soconay nooga soo baxdo sidee waxbarashada gobolka Banaadir meesha ay joogto loo sii hormariyaan waxaan runtii mudan in loo mahad celiyo dadka meeshaan jooga dhamaanteen inta aniga ilaag ama iga yar burburkii ay wax barteen dadkii burburkii waxna baray ka soo shaqeeyay in waxna baraan meesha maanta way joogaan dadkaasi shaqo fiican ay soo qabteen anagana soo saareen ولنا ولا وضع نظام كي دولي يا سوق جيستي وزارة الحبرشة وضن كي أنا شقدي وحبرشة ويلا وريكتي الدولة دي هي كلا دولة قبلية دي وزارة دي وحبرشة السمي وحبرشة ويلا وريجين قبل كبنادر أسجنا ما دام ويا هيئات كم ده هيئات الدولة وهي أيضا قاعد ستين وحبرشة لسه وريكتو ويلا وريكتي وحقوقها بالسعجاس وحبرشة قبل كبنادر marka agaasinkii oo waxbarashada lagu wareejiyay iyo bahdii waxbarashada ay ka shaqeyn jirtay magaalada Muqdisho xiriirkooda muxuu yahay sidee shaqadii u wadaan sidee wada shaqeeyaan waxbarashada xagee marsiinayaan muxuu ugu talagalay agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir bahda waxbarashada uu la wadaago muxuu ugu talagalay si guud ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ee mas'uuliyadda u qaaday
muxuu fariina u rabaa inuu gaarsiiyo arrimahaas iyo arrimo kale ayaan rabnaa inaan meeshaan uga doodno nooga soo baxaan wax fiican oo aan ummaddeena Soomaaliyeed na sugaysa inaan gaarsiino gobolkan Banaadir ardada hadda noo xareysan systemka nagu jirta ee fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad ardada hadda noo xareysan ee waxbarashada ku jirta magaalada Muqdisho waa 300,000 oo arday oo 8 ku dhiman 291,000 iyo xogaa waaye ardada gobolka Banaadir hadda waxbarashada ku jirta markii laga soo tagay jaamacadihii wali ma la gaarin waxa ayaduna xogtii ardada yaryarka ah ee 3 sano ilaa 6 sano loogu talagalay in waxbarashada soo bartaan ka horeysa iskuulka ayadana xogteeda hadda wadna wax arimahaas tirada badan iyo dadkaas tirada badan waxay naga sugayaan inaan u sameeyno adeeg waxbarasho oo tayo leh ee naga sugayaan maadaama inta naga sugayaan anaguna san soo shaqeynay xiliyada soo dhowna inagu soo dhow yihiin imtixaanaadkii iyo hawlihii ugu adkaa inagu soo dhow yihiin ayaa shirkan muxuu ahaa inaan isku imaano go'aansanay kana doodno noogana soo baxaan ardada intaas la eg iyo intoo kale ama ka badan oo banaanka joogta si ayaan waxbarashada lagu saxreeyo in laga arinsado ayaa ay kugu yeernay waxaan rajaynayaa insha Allah dhowrkaas maalin ay meeshaan aan fadhino labada maalin maanta iyo biri inay ka soo baxaan waxa ay ku diirsadaan ayna fahmaan meesha loo socdo dadweynaha ku nool gobolka Banaadir hadwaaleedmo waxaan leenahay mar kale soo dhawaada waa maasantiin madaxda iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay